afkun 2023 under 17 tartanka African Cup of Nation ee da'adooda wiilasha ay ka hooseyso 17 sano jirada Soomaaliya sanadan ayay ka qayb galaysay markii ugu horeysay taariikhda inta la xusuusto ayay ka soo muuqatay wadanka Soomaaliya tartankan waxaana tartankan sidoo kale sanadan ka qayb galayay 11 wadan oo lagu daray Soomaaliya 12 wadan oo ku soo baxay Israel iyo sidoo kale in xiriirada ay ka tirsan yihiin ee xiriir hoosaadka qaaradda Afrika ay tartamadooda meel wanaagsan ka soo gaareen sida Soomaaliya oo ku soo guuleysatay tartankii bariga bartamaha Afrika ee da'adooda wiilasha ka hooseyso 17 sano jirada. Haddaba muxuu yahay tartankan goormee la soo bilaabay waatee xulka ugu badan ee ku guuleysatay Soomaaliya mise mar ay ka qayb gashay waa kee xulka ugu badan ee tartankan ka soo muuqday warbixintan ayaan ku eegi doonaa. inta taariikhda la xusuusto ama la diiwaan geliyay tartankan waxaa markiisii ugu horeysay la qabtay sanadii 1995 markaas oo wadanka Maali uu noqday wadankii ugu horeeyay ee tartankan martigeliya. sidoo kale waxaa kor u qaaday markaasi wadanka Ghana si la mid ah 1999 ayay mar kale Ghana nasiib u yeelatay inay ku guuleysato. 97 ayaa mar kale la qabtay 99 2001 2003 2005 2007 iyo sidoo kale 2009 2011 2013 2015 2017 waa sanadaha guud ahaan tartankan la qabtay waxaana markaasi dareemi kartaa in sanadka oo markaasi yahay tartankan mid labadii sanaba mar la qabto sida jadwalka xiriirka kubadda cagta ee Afrika ku xusan. haddaba waa kee wadanka ugu badan ee tartankan kor u qaaday. dabcan wadamo badan ayaa min laba mar ku guuleystay waana wadamada kala ah Ghana oo laba mar ku guuleystay, Nigeria, Mali, Cameroon, Gambia ayaa sidoo kale noqday wadamada markaasi min laba mar tartankan ku guuleystay si la mid ah wadamada Egypt, Ivory Coast, Burkina Faso ayaa iyaguna tartankan min hal mar markaasi kor u qaaday. tartankan ayaa waxaa difaacanaya kooxda kubadda cagta ama xulka Cameroon oo sanadii ugu dambeeyay tartankan la qabto ayuu kor u qaaday waxayna yihiin difaacadayaasha tartanka sanadan. haddaba waa kee wadanka ugu badan ee tartankan ka soo muuqday tiro intee leeg ayuuna markaasi wadanka aan ku sheegayo daawade ka soo muuqday. wadanka ugu badan ee tartankan ka soo muuqday waa wadanka Nigeria wuxuuna markaasi ka soo muuqday tiro jeer 10 ku dhan. Nigeria ayaa ah wadanka ugu badan ee tartankan ka soo muuqatay tiro 10 jeer ah ayay markaasi tartankan ka soo muuqatay 10kaas jeer laba kamid ah ayay ku guuleysatay mar ay kaalinta saddexaad gashay mar kaalinta labaad ayay gashay laba marna kaalinta afraad ee tartankan ayay ku guuleysatay. dabcan laba marna sidoo kale kaalinta markaasi labaad ayay ku guuleysatay wadanka ee markaasi lagu magacaabo Nigeria oo wadanka ugu badan ee ka soo qayb gala tartankan. Mali ayaa ku xigta wadamada tartankan ugu badan ee ka soo qayb galay waxayna ka soo muuqatay tiro 9 jeer ah. laba mar ay ku guuleysatay Mali, laba mar group stage ay ku hartay, hal mar kaalinta afraad ay ku dhameysatay, mar kaalinta labaad halka tiro laba jeerna kaalinta saddexaad Mali ay iyadu ku dhameysatay. laba wadan oo kala ah iyagu Ghana iyo Benin ayaa iyagu booska saddexaad iyo afraad ku jira xulalka ugu badan ee tartankan ka soo qayb galay waana tiro min 7 jeer ah ayagoo markaasi wadamadan ay yihiin kuwa ugu magaca dheer ee tartanka kubadda cagta Africa Cup of Nation ee iyagu markaasi ka soo muuqday ee da'ada wiilasha ay ku eg tahay 17 sano jirada ama under 17 waxaana Soomaaliya ay tahay taariikhda markii ugu horeysay oo ay tartankan ka soo qayb gasho si la mid ah Malawi ayaa taariikhdan la wadaagto oo tiro hal jeer tartankan ka soo qayb gashay. wadamada kale ah Eswatini iyo Eritrea ayaa Soomaaliya ku weheliya wadamada min halka jeer tartankan ka soo qayb galay. wadamo badan ayaa tiro hal jeer tartankan ka soo qayb galay oo Rwanda ay qayb ka tahay waxayna Rwanda markaa ku dhameysatay booska labaad sanada oo iyadu ku beegneed 2011. wadamo badan ayaa sidoo kale markaasi ayagu kaalimo fiican kaga soo jira. South Africa ayaa 4 jeer ka soo qayb gashay tartankan iyadoo si la mid ah wadanka lagu magacaabo
Zimbabwe uu tiro 4 jeer tartankan ka soo qayb galay. Si kastaba ha ahaatee tartanka AFCON 2023 iyo sidoo kale guud ahaan tartankan ayaa ah mid taariikh weyn leh. Soomaaliya ayaana taariikh ka samaysay goolka ugu horeeyay ee ka dhalisay sidoo kale dhibicdii ugu horeysay tartankan ayay iyadoo kor u qaaday oo heshay